السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة تحنهيني أنا أندروفا دمانتيني سو راعة دنك مقالة بغداد وإنو جوكتي حلقة دي كواد بغداد يا أنا كودا دادال كوريري حتى برياشي عربيدة جامعة دوديغي وحيسيس تبجوغ أورادين يسي حكو صابسان حيبها جيسك أفريكا يقودتك تاريخي دا عرفك قلوعان أفريكا كارهان بريق فك حيبها صومالي tani waxay noqotay mashruucii ugu hawsha badnaa ee qabtaan taariikhyahanada Baghdadiyiintu walow aysan aana Baghdadiyad ahayn haddana waxay sidataa cilmiga Ciraaq waxay safarkeedii ugu horeeyay ugu soo baxday xeebaha fog ee Xiis iyo Maydh oo dhacateedka waqooyi bari ee Badda Cas Xiis iyo Maydh waa magaalo xeebeedyo aad u qurxoon indho waliba oo halkaas arkayna ay markhaati ka yihiin socdaalka aana ku gaadhay Xiis iyo Maydh wuxuu ahaa midkii ay ku ogaatay xogta ay dib ka heshay ee ku saabsan sawir-gadeedka Laskeel oo ah deegaan masaafo ahaan u dhow magaalada Hargeysa ay qorshe ku meel dhigtay safarkiisa walow aysan hilmaansanayn inay sidoo kale tagto jasiiradda caanka ah ee ku taal xeebaha waqooyi ee dhulkeena waa Sacaadadiine jasiiraddan oo ah mid aad u xiiso gelisa dalxiisayaasha ay xog baadhis ugu baxaysa Mrs Androfa haddase waxay ururinaysaa xog ku saabsan asalkii Soomaalida iyo xaddiga macdanta laga heli karo dhulkan oo manaxigeenka ah bisna gubanka u janjeero ee Soomaalidu degto erayal laga su'aalay Soomaalida iyo siday u aragto ay kaga jawaabtay Soomaalidu waa dad caqli ahaan u xoogan deeq badan wajiyadooduna ayba kuwa kale ugu filan yihiin jaantus ama maab qaybta saddexaad ee qisadan iyo waxa ay kula kulmi doonto qaybaha hadhay socdaalkeeda waxaanu kaga bogan doonaa qaybta tan xigta qisadeena